salaamullaahi calaykum halkani waa dunida TV qodobada aad ku maqli doontaan warkanana waxaa qayb ka ah Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxa iskula jira iyo arrin ay isku khilaafeen dowladda Eritrea oo sheegtay in madax furasho loo haysto ciidamada Soomaalida ee dalkaasi tababarka ku qaadanaya isla markaasna lacag fara badan lagu leeyahay ciidamadaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo booski Fahad Yaasiin u magacaabay Xuseen Macalin oo ahaa nin si weyn uga soo horjeeda aragtida farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo durbadiiba kala carar xoogan oo soo food saaray kooxda filla Soomaaliya shantii sano ka arrimaysay iminka talada banaysay qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanayeen ku faaqidi doona warka dunida TV oo diyaar garooba fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato moogaanada subscribe saarato YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid ayadoo madaxweynihii horeete ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in ciidamada tababarka u jira dalka Eritrea ay diyaarsan yihiin oo markii la doono dalka dib loogu soo celin karo ayaa haddana warbixino iyo macluumaadyo kala duwan ka soo baxayaan ciidamadaas iyo sababta ay ugu joogaan gudaha dalka Eritrea ilaa iyo haatan wareedyo dhinaca diblomaasiyadda ayaa ku waramay in dowladda dalka Eritrea ciidamadaas ay u haysato kumanaan kun oo lacaga kuwaas oo qarashka galay ee tababarka iyo cuntadooda iyo hoyga ay degan yihiin ciidamadan oo markii horeete ay dowladda Qatar biritaaraysay taageeradooda lana doonayay in dalka lagu xoojiyo amnigiisa iyo in farmaajo ay u suurtageliyaan inuu dalka ku qabsado awood military ayaa markii ay ku fashilmeen kadib dowladda Qatar waxaa la sheegay in dhaqaalahaasi ay goosato dowladda dalka Eritrea ayaa horey fariin ay ugu soo dirtay dowladda Soomaaliya uga dalbatay in la bixiyo lacagtaas kumanaanka kun gaaraysa ciidamadana laga soo wado gudaha dalkeeda balse waxaa la sheegay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan kooxda madaxweyne Farmaajo ay awoodi waayeen lacagtaas inay bixiyaan iyagoo lacagtaas inay ku bixiyaan ciidamadaasna ka doorbiday in ay lacagta ku galaan oo la doorasho sida ay sheegeen qaar ka mid ah saaxiibada filla Soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalkaasi Eritrea oo soo xiganaysa hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii horeete ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadu muddo sanad ka badan ay u xayiran yihiin dhaqaale fara badan oo ay dowladda Eritrea ay ku leeyahay ciidamada dowladda Qatar ayaa markii horeete ciidamada aruurintooda iyo geyntooda dalka Eritrea door muhiim ah ku qaadanaysay balse waxaa la sheegay in markii dameeta ay ka baxda arintaasi markii ay ogaatay in filla Soomaaliya ay ku guul dareysatay damiceedii ahaa inay hirgeliso nidaamka muddo kororsiga iyo in awood military dalka lagu maqooniyo Qatar waxay ogaatay in dhaqaalaha uga baxaya ciidamadaas tababarkooda uusan ahayn mid faa'iido u leh dhinacyada diblomaasiyadda iyo horumarka wadankaasi Qatar dowladda dalka Eritrea ee uu hogaaminayo kaliya taliyaha dalkaasi Asfawaaki waxaa la sheegay inay lacagtaasi oo aad u fara badan ay doonayaan in dowladda Soomaaliya ay bixiso kadibna ciidamadaasi laga soo kaxeeyo wadanka Eritrea wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in dhowr jeer horeete la isku dayay in ciidamadaasi dalka la keeno gaar ahaan xilliyadii ay socdeen arrimaha la xiriira khilaafyada u dhaxeeya Rooble iyo Farmaajo balse lagu guul dareystay kadib markii lacagta ay dowladda Eritrea ay sheegatay ay ahayd mid cadadkeedu sareeyo ciidamada oo gaaraya 5,000 oo askari waxaa la sheegay in tababarkooda cuntada hoyga ay degan yihiin iyo goobta lagu tababaray macallimiintaba dhaqaale fara badan uu ku baxay isla markaasna dowladda wadankaas Eritrea ay doonayso in dhaqaalahaasi loo celiyo lamana oga siday suurtagal ku noqon karto in dalka lagu soo celiyo ciidamadaas iyadoo la bixin qarashaad ka badan ee ay sheeganayso dowladda Eritrea madaxweynihii horeete ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ciidamadaasi ay u xayiran yihiin arrimo la xiriirta dhaqaale lagu leeyahay oo lagu tababaray balse waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay diyaar u yihiin inay dalka dib ugu soo noqdaan Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gorada iskula jira Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu ka dalbaday madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ra'iisul wasaaraha la siiyo asaga isla markaasna uu noqdo shakhsiga ra'iisul wasaaraha noqonaya ama laga dhigo shakhsi uu asagu keensado
arrintaas ayaa la sheegay in xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa dambu jadiid ay aad uga cagajiidayaan iyagoo doonaya inay keensadaan ra'iisul wasaare saaxiib la ah kooxdan lana shaqay kara. Dani ayaa la sheegay in arrintaasi uu aad uga xumaaday asagoo ku cadaadinaya madaxweynaha cusub ee dalka in la hirgeliyo qorshaha la xiriira in ra'iisul wasaaraha uu noqdo shakhsi ka soo jeeda Puntland haddana uu go'aankeeda leeyahay Siciid Cabdullaahi Dani. In Dani laga dhigo ra'iisul wasaaraha dalka waxaa la sheegay inay aad uga cagajiidayaan kooxda iminka talada dalka qabatay ee uu hormoodka ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud. Dani ayaa loo arkaa in ay tahay arrintiisu mid culaab weyn ku keeni karta tallaabooyinka ugu horeeya ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo magacaabo ra'iisul wasaare. Waxaa la sheegay in xubnaha Aranjan oo iyagu ah awoodda Puntland ay ku dhisan tahay ay doonayaan in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka Axmed Ciise Cawad oo horey u ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. milkiilayaasha Aranjan oo uu ka mid yahay Maxamuud Shido ayaa la sheegay in xasan sheekh maxamuud ay ku qalqaalinayaan in ra'iisul wasaare la siiyo balse lama oga sida loo dhaafi doono arrinta Dani oo muhiim u ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud. khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland gaar ahaan madaxweyne Dani iyo Aranjan ayaa dab ku sii shiday in Puntland ay heli karto ra'iisul wasaaraha dalka waxaana suurtagal ah in meel kale loo weeciyo maadaama loo arkayo isqabqabsigooda inuu faa'iido u keeni karo dhinacyada kale ee awood qaybsiga wax uga leh ra'iisul wasaaraha wadanka. madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xilkii uu ku magacaabay Fahad Yaasiin qof kale u magacaabay isagoo xilkaasi ka ceeriyay. madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magacowday la taliyihiisa gaarka ee amniga qaranka xasan sheekh maxamuud oo la tashiyo sameeyay ayaa u magacaabay xilkaasi in uu noqdo Xuseen Macalin oo horey u ahaa mas'uul sare ama qabiir dhinaca ammaanka. waxa uu 30 sano ee la soo dhaafay ahaa shakhsi ka howlgala gudaha Soomaaliya sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya. sidoo kale waxa uu la taliyaal dhinaca amniga u soo noqday xasan sheekh maxamuud iyo Farmaajo waxaana iminka noqonaya mas'uulka hogaaminaya la taliyaha amniga qaranka oo muhiim u ah xilliga kala guurka iyo dib u habeynta ciidamada. Xuseen Macalin oo hoggaan u ahaa macadka Hiraal ee taxliiliya arrimaha amniga ayaa iminka noqonaya mas'uulka ugu sareeya dhinaca la talinta amniga gaar ahaan xafiiska madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud. xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay Xuseen Macalin oo si adag u mucaaradsanaa sanadihii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. dhowr jeer oo horeete oo ka hadla arrimo la xiriira kiiska Ekraan Tahliil ayuu ku eedeeyay Fahad Yaasiin inuu arrintaasi ku lug lahaa isla markaasna aysan ka jawaabin asaga iyo Farmaajo eedeymaha loo jeedinayo. Xuseen Macalin ayay kooxda Filla Soomaaliya ka arriminaysa 5 sano u arkaan inay tahay mid dab ku sii shidaysa inay Soomaaliya ku sii noolaadaan iyagoo intooda badan dalka iskaga baxsaday isla markaasna ka howlgalaya iminka wadamada dabadiisa oo ay doonayaan inay magangeliyo ka helaan. xasan sheekh maxamuud ayaa saaxiibadiisa xilal ku taxay asagoo iminkaba wada qorshayaasha la xiriirta magacaabitaanka xubnaha kala duwan ee dawladda ee uga shaqeyn doona hanaanka dawladnimada Soomaaliya. warkaad ka daawaneyseen Dunida TV waa intaas sidaas iyo nabadgelyo.